siyaasadda ma lahan saaxiib waxa ay leedahay dan joogto ah waa uu ku daay gudoonkii cusbaa ee baarlamaanka Soomaaliya dhabarjabin xun ayuu ku sameeyay xubnaha mucaaradka waxa uu la kulmay madaxweyne Farmaajo ballanqaad ayuu u sameeyay maxay yihiin hadaba ballanqaadkii uu sameeyay taliye xijaar oo istijaabay tan iyo markii shaqo joojin lagu sameeyay amar ayuu siiyay taliyaha booliska Soomaaliya si ay amniga u sii xoojiyaan inta ka harsan doorashada madaxtinimada Soomaaliya Jarnaal Farxaan Qaroole oo markii uu horeysay ka soo hormuuqday warbaahinta waliba asagoo si live u hadlayo Qaroole ma yahay nin hadal yaqaana warbixintan waa warbixin degdeg ah shaardeh muuqaalkana like sar sidoo kale page-keena follow soo dhe iyo barteena YouTube-ka ee Man Official haddii aad ku cusub tahay subscribe dhe mahadsanid taliyaha shaqo joojinta lagu sameeyay ciidanka booliska Soomaaliya Jarnaal Cabdi Maxamed Xasan Xijaar ayaa faahfaahin ka bixiyay arrimaha ammaanka magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka taliyaha Xijaar oo 16 bishan shaqo joojin uu ku sameeyay wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur Sodon jirka ayaa ciidamada booliska Soomaaliya ku amaanay siday ugu guuleysteen in ay sugaan ammaanka doorashooyinka dalka ka dhacay taliye Xijaar ayaa hadalkan ka joodiyay kulan ay isku yimaadeen saraakiisha ciidanka booliska kaasi oo looga hadlayay dardargelinta sugidda amniga guud ee dalka looguna mahadceliyay ciidanka booliska Soomaaliya siday u sugeen ammaanka doorashooyinka dalka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ee Xijaar ayaa ku bogaadiyay dhammaan ciidanka booliska farayna in ay si weyn isku diyaariyaan dhamaystirka inta ka dhiman sugidda amniga doorashooyinka dalka kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii loogu diyaargaroobi lahaa adkeynta amniga taliye Xijaar ayaa dhawaan wajigada kala kulmay buwaanu isku dayay inuu isku hor istaago doorashooyinkii gudoonka golaha shacabka ee ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa taliye Xijaar shaqo joojin ku sameeyay habeenkii ugu dambeeyay oo isku dayay inuu hor istaago doorashooyinkii inkastoo dib markaas laga xaliyay sida ay sheegeen goobjoogayaal ku sugnaayeen halkaas dhinaca kale kulamo siyaasadeed ayaa ka soconaya magaalada caasimadda ee Muqdisho gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ka baxay gacanta mucaaradka dhanka kale fila Soomaaliya ayuu isku dhiibay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu ku soo dhaweeyay madaxtooyada qaranka isla markaana kulan uu la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee golaha shacabka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa madaxweyne Farmaajo ugu hambaliyay gudoomiyaha iyo dhammaan gudoonka kale ee golaha shacabka ee 11aad